السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Muuqaalkan waa muuqaal quseeya qof kasta oo ah YouTuber ama jecel inuu noqdo YouTuber. Wuxuu kala quseeyaa qof rabo inuu website samaysto. Intaas wuxuu ka quseeyaa sidoo ku heli lahaa views-ka ama saacadaha YouTube-ka. Marka muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sidee loo helaa 4,000 ee saacadood ee YouTube-ka ama sidee loo helaa maalintii 15,000 views dhinaca website-ka adigoo helayo organic traffic oo dhinaca website-ka ah. Marka daaratid inaad website samaysatid ama YouTube samaysatid, muuqaalkan wuu ku quseeyaa. Waxaan rajeyn doonaa inuu ku anfici doono. Sidaas la ognahay hadaa website samaysato Google AdSense ku xirato, Google AdSense wuxuu kaaga baahan yahay 10,000 views. Sidoo kale wuxuu kaaga baahan yahay 25 post inaad soo gelisid. Kaagama baahno wax like ah ama follow ah. Sidoo kale YouTube wuxuu kaaga baahan yahay 4,000 saacadood iyo wuxuu kaaga baahan yahay 1,000 subscriber. Marka insha Allah website-kana maanta idin wado kama caawinayo 1,000 subscriber inuu ku siiyo. Sidoo kale kama caawinayo 25 post inuu ku siiyo. Laakiin wuxuu ka caawinayaa dhinaca YouTube marka la joogo hourska ama saacadaha. Dhinaca website-ka marka la joogo wuxuu ka caawinayaa views. Marka insha Allah waxaan isla fiiri doonaa qaabka uu shaqeeyo iyo sida la iskaga diiwaan geliyo iyo sida uu xir leeyahay website-kaaga ama YouTube-kaaga. Intaana bilaab muuqaalka koor waxaa ka rajeyn doonaa inaad muuqaalka like saarto, subscribe na dhahdo, u share gareyso ugu yaraan hal qof. YouTube channel-ka aad daawanaysid noo hajaleyn kusoo dhawaad muuqaal. Saaxiibiyaalkan waa application-ka oo kaliya ma aha website-ka. Marka hadda waxaan sameyn doonaa waa tuuri doonaa hadii ko insha Allah soo bilaabaya. Insha Allah linkiisa waxa soo gali doonaa video-gan description-kiisa meesha laga qaado. Markaad ku soo dhufato marka waxa ku soo baxayso sida tan ku soo baxayso. Marka si toos waxa ugu dhufanaysaa iska diiwaan geliska marka joogtid sign up qaybtaas kor ku dhufanaysaa waxa ku soo baxayso sida tan. Qaybtaas ay ku qoran tahay name waxa gelinaysaa magacaaga. Qaybta koosaysa ku qoran email waxa gelinaysaa email-kaaga. qaybta ka hooseysa waxa gelinaysaa password hadeed waxa gelin kartaa password-ka ay ka sameeyeen oo waxa ku dhufanaysaa use strong password ama si toos waxa u gelinaysaa password aad ugu samaysatay waa inuu ka koobnaadaa number iyo magac iyo symbol. Markaas waxa ku dhufanaysaa sign up. Marka ku dhufato waxa ku soo baxayso wuxuu ku leeyahay verification ka dhig account-kaada. Marka meesha marayso waxa ku dhufanaysaa resend email. Marka wuxuu ku leeyahay si toos waxa loogu diray email-kaaga verification-ka. Marka hadda waxa aadaynaa Gmail-keena si aan soo helno link-kayga verification-ka. Hadda sida u jeedaanba waa ii soo dhacday. Waa ku kadibna hoos u soo degaya laba option haysataa inaad linkiga koobiyeyso ama inaad ku dhufato activate account. Aniga hadda option-ka qaadanaya waxa waa inaad ku dhufto activate account. Marka ayaan ku soo dhufanay wuxuu ku leeyahay verify laga dhig account-kaada. Hadda uu soo dhaweynaa welcome to Java 4.0 uu leeyahay. Marka hadda waxa ku dhufanaya sign in. Sign up marka sameeyay Gmail-ki password-ka soo gelinaysaa. Kadib waxa ku dhufanaysaa sign in ilaa inta soo gaartay aad in la like saarin muuqaalka waxa ka codsanay in like saartid. Marka sign in marka ku soo dhufanay waxa noo soo baxay sida tan u jeedin. Marka hadda tilaabada labaad qaadayna waxa waaye in la soo degno application-kiisa si ay u shaqeysiino aan u helno views iyo watch hours. Marka rabno in la soo degno application-kiisa waxa ku dhufanaynaa download and earn hits. Marka hadda waxa soo baxay jeedin marka waxa ku dhufanaysaa meeshaas ee free dul saaran. Inta marka sameeysid waxa ku soo baxayso wuxuu ku leeyahay 88.3 MB marka la soo deg waa la soo degeen. Mar kale waxa ku leeyahay in la muuqaalka like saaran insha Allah like saar muuqaalka channel-kana ku soo biir si aad u hesho cashar kasta soo dhigno. oo jeedin marka waxaana soo baxay waa iska qaldeena waa ka qaybta soo sida u jeedid uu soo degooyaa. Marka banaanka keento ama folder-kaaga oo ku soo dhufanaysaa waxa ku soo baxayso sida tan. Marka waxa leedahay next setup-ka sameeyaysaa waa ka siisa loo sameeyo. Setup waxa la application-ka banaanka keeno banaanka insha Allah keeni doonaa in waa ka siisa loo keeno. Mideeda kalena wuxuu ku shaqeynaa mobile xitaa ku shaqeynaa ku soo degso mobile-ka. hadaa muuqaalkan wax badan gaarsiisaan aad taageertaan inuu arabtiina iyo cadeysaan waxa sameey doonaa asoo mobile ah inaan muuqaalka soo diyaariyo. Marka hadda insha Allah uu soo dhamaa soo jeedin insha Allah ayaa soo furnaa. waa kaasa abka geeska soo yaala inta soo dhigaa si u aragtaan macnaha. Marka hadda soo furo doonaa waa kana hadda soo furanay marka soo furitid saan u yaala. Marka soo furato isla markii minimize iska leedahay website-ka caadiga u soo laabanaysaa. Marka u soo laabato meesha safarta gelinaysaa hoos soo degaysaa download and earn hits marka ku dhufanaysaa hoos soo degaysaa kadib meesha cagaarta generate token ku dhufanaysaa. Ina waxa waaye token abuur waaye. Hadda waa abuurmatay token-ka waa abuurmaday copy aan leedahay. Marka copy ku dhuftay sida tan ay soo baxday okay aan leeyahay. Application-ka ku soo laabanaya meesha sirtka paste ku leedahay. Kadibna waxa leedahay submit token. Isla marka token-ka marka geliso qofku adiga kala oo meesha wax ku xayisiinaya views ka raadinaya isla markii ku soo baxay. hadda meeshaan waa qof caadi ah waaye wax isku xayisiisanayo Facebook wax ku xayisiinayo meeshaan shirkado badan wax caan ka ah oo Facebook sida shirkado badan Meta shirkad la dhaho kale shirkado caan ah meesha ku jiro sida eBay xataa ku jirtaa waxay ku xayisiisataa inta markaa sameeysid si views iyo hours u heshid shaqada u dhamaysa qabanaysto waxa waa ina ku xirto website-kaaga ama YouTube-kaaga markaad waxa aadaynaa shaqada iyada aadaynaa waxa ku soo xireynaa YouTube ama website si aad samayso waxa soo laabanaysa website-ka
meeshas koraad ku dhufanaysaa menu, kadibna waxaa kasii dooranaysaa qaybta websites. Wuxuu kala leeyahay laba meel oo kale ah add new domain iyo add new URL. marka midka domainka waxaa waa website waaye. marka hadda waxaa gelinaya YouTube channelka gelinaa. marka waxaa sameeyaa inaan soo koobiyo linka YouTube channelka kadibna aan ku paste gareeyo. markaa soo koobiyay waxaa ku dhufanaya meesha ku qoran tahay add new URL kadibna waxaa ku paste gareynaya linka YouTube channelka. marka hadda waxaa sameynaya hoos soo degaya labadaas meel aad tig saaraya kadibna waxaa leeyahay add new website link. kadib sidoo dhaw jeedin URL successfully edit oo dhahay oo jeeda oo lagu soo daro dhahay. marka hadda sidaan waxaa ugu daray YouTube channelka. sidaas ayaa waxaa ugu soo daray YouTube channelka. markiiba marka 5 maalin axad markii laga joogo waxaa ka dareemaysaa isbedel YouTube channelkaaga. marka hadda waxaa ku xiranaa website-ka. horta intaan ku xirin wax yar ka dhaha website-ka. website-da ku xirato maalintii baalkan wuxuu ku siinaa 2,000 views 3,000 views. marka waxaa lagu siiyaa dadka website-ka leh 2,000 views wuxuu steer ku siiyaa $5 ilaa $10. marka saas uu kaaga caawin karaa si bilaash adoo isdhibin ku xiro oo kaliya fiiso ka hel. haddii kalena markii la fiiriyo website-ka YouTube channel-ka waxaa fudud website-ka fudud sababtoo ah hadda sameysanaysaa isla hadda ku xiranaysaa isla hadda lacag ka sameynaysaa. horey waa wax dhan waa website-ka intaas ugu fiican yahay YouTube channel-ka. YouTube channel-ka inaad 4K hawada soo buuxisaa kun subscriber buuxisaa. marka aan wax kula talinaynaa website sameysato. qofkii rabo inuu sameysto wuxuu ila soo xiriiri karaa video description-kiisa WhatsApp. saaxiibaya mideeda kale qofka website markuu leeyahay bishii wuxuu ka sameyn karaa lacag wali ah $3,000 ilaa $5,000. dadku waxay website u sameysan leeyihiin waxaa waa Google AdSense oo ka rabo address oo kaliya waxa ula bixi kartaa lacagtiisa Mastercard. marka hadda website-ka dhisteer loo lacag soo kala bixi kartaa perfect money. haddii rabtina si toos waxa ugu soo diri kartaa AVC Plus lacagtaada adoo isticmaalaya appkeena H-Crypto. marka hadda waxaa ku tusinaya sida loogu xiro website-kaaga. marka hadda waxaa ka soo qaadanaysaa linkigaas oo jeedaa domainka website-kaaga hijlin.th camal waxaa ka soo qaadanaysaa kadibna waxaa imaanaysaa website-ka kusoo laabanaysaa. waxaa ku dhufanaysaa qaybtaas menu kadib waxaa kasii dooranaysaa websites kadib waxaa leedahay add new domain meesha gelinaysaa domainkaaga kadib hoos soo degaysaa labadaas meel tig saaraysaa. waxaa leedahay add new domain. wuxuu diidan yahay macnaha dhowli inaa ka tagay macnaha wuxuu rabaa inaa gelisid https://www.hijlin.th saas inaa ka dhigta camal. marka hadda saasaa ka dhigaynaa insha Allah. waa kana hadda domainka si toos ugu darnay oo ka yaalayahay qaladaas ka saaraa. marka domain iska hal xaba igu jiro URL-kana hal xaba igu jiro. marka hadda wuxuu u shaqeynayaa si caadi ah qofka inuu fiirsanayo la mid tahay hadduu ka tago xataa hadii kale inuu fiirsanayo la mid tahay. marka dad la soo bandhigaa YouTube-ka hadduu yahay ama website-ka hadduu yahay dad la soo bandhigaa labadooda. marka wuxuu leeyahay wax referral la dhaho qofka soo raaca wuxuu kugu siihaa wuxuu helaa kiska mid oo ka siihaa. marka hadda linkiisa waxa waaye waxaa ku dhufanaysaa referral kadibna waa kana meeshaan ka helaysaa linkiisa koobi aa leedahay qofka yarta u diraysaa. muuqaalkiina maanta taan ku ekaa channel-ka hadda ku xustaa subscribe saaro muuqaalkan like saar ugu yaraan xataa u share garay hal qof. sidoo kale waxaa leenahay Facebook page ku qoran Hijlearning insha Allah video description soo dhigi doona asigana halkaas ka booqo soo follow garay meesanidin.